السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلن wanaagsan qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax xooggan oo ka dhacay agagaarka xirada xalana ee magaalada Muqdisho hadaba khasaare ceenkee ayaa ka dhashay qaraxaasi yaasa ka dambeeyay xog arintaasi la xiriirto ayaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa oo muuqaalka aad ku daawan doontaan cabsi soo wajahday shacabka ku nool magaalada Muqdisho kadib qaraxa ismidaaminta ahaa ee galabta ka dhacay halkaasi ra'iisul wasaare Roble oo la kulmay midowga raxiinta isla mar ahaantaana ka hadlay arrinta kiiska Ikraan Tahliil odayaasha beesha hawiye oo ka hadlay warqadii xalayta uu soo saaray madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda Jabuuti oo sheegtay in caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle haddaba maxaa ka jira wararka lagu faafinayay baraha bulshada maalmaha la isla dhexmarayay oo sheegayay in xaaladiisa ay liidato qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelka si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkaan soo gelino aanu ku bilownay goor dhaweyd waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qarax xooggan gaar ahaan albaabka laga galo xirada xalane ee shisheeyaha ay degan yihiin ee magaalada Muqdisho sida dad goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen waxaa qaraxa lala beegsaday maqaayad ku dhow meel lagu qaado canshuurta dawladda hoose balse weli ma caddo nooca qaraxa uu ahaa inkastoo warar hordhac ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismiidaamin ah goobjoogayaasha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa iyadoo weli si rasmi ah loo xaqiijin karin dhimashada iyo dhaawaca ka dhalatay qaraxaasi qaraxa ayaa imanaya toddobaadun kadib markii channelkeena uu shaaciyay xog ku saabsan digniin ka soo baxday xafiisyada amniga ee hay'adaha ajnabiga ay ku leeyihiin Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane iyo sirdoonka Soomaaliya oo ku saabsanayd in Muqdisho ay ka dhici karaan weeraro culus xogta ay bixiyeen khubarada amniga oo channelkeena uu ogaaday ayaa waxa uu sheegay in weerarada qaraxa ah ee laga cabsi qabo ay ka koobnaan karaan rag soo xirtay jaakadaha qaraxa gaadiid qaraxyo ah iyo weliba qaraxyada gaadiidka lagu xiro ee badanaa lagu dilo wadaha gaariga waxay ku soo kordho qaraxaasi daawadayaal muuqaalada xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa galabta xafiiskiisa ku qaabilay xubnaha midowga musharaxiinta kuwa oo uu kala hadlay arrimo dhowra ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta ayaa marka koobaad kulankooda uga hadlay sidii cadaalad loogu heli lahaa qoyska Ikraan Tahliil Faarax laguna simi lahaa hay'adaha garsoorka oo kaliya musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha u muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin hogaamintiisa iyo weliba dardargelinta kiiska Ikraan Tahliil si cadaalad loo horgeeyo isla markaana uu ka ilaaliyo dhinaca Farmaajo oo doonayo in kiiskaasi la duugo musharaxiinta ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo dardargelinteeda iyadoo oo la isla meel sidii loo sii wadi lahaa howlaha doorashooyinka waxaa dhinaca kale ay ka wada hadleen doorashada golaha shacabka oo la filayo inay dhowaan bilaabato iyagoo tilmaamay inay muhiim tahay in odayaasha loo daayo soo xulidda ergooyinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ee la kulmay ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha inay isla garteen dardargelinta howlaha doorashooyinka waxa uu sheegay siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ay ra'iisul wasaaraha kala hadleen sidii uu kiiska Ikraan Tahliil ku heli lahaa cadaalad laguna simi lahaa hay'adaha garsoorka iyo in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo weliba in la qaboojiyo xasarada waddanka ka taagan qaybaha dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay odayaasha beesha hawiye ayaa war ka soo saaray qoraalkii xalayta ka soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo guddi u soo magacaabay kiiska Ikraan Tahliil odayaasha beesha hawiye ayaa waxay sheegeen in kaliya ay ku qanacsan yihiin dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha beesha gaaljecel gaar ahaanna ah ugaaska beesha ay ka dhalatay Ikraan Tahliil ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ka dalbanayaan in alla ay ka boqdo oo kiiska Ikraan ay uga shaqayso si cadaaladda aad ugu mahadcelinayaa duubtii sharafta leh sida ay maanta wicitaankeeda iga ajiibeen oo ayna noo garab istaageen waxaa kaloo mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto dibad iyo gudo oo runtii arrintan maanta aan halkaan iskugu nimido ah kiiska Ikraan Tahliil Faarax sida ay ugu qayb qaateen oo runtii ay aad iyo aad u falceliyeen waa u mahadcelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta kadib
waxaan maanta iskugu nimid oo duubabkii sharafta leh aan u wacay in arrintan ikraam oo runtii muddo socotay waxaan rajaynayaa inay maanta 76 miya ma aqaan intaan u malaynaa korka ma hayo ayay maqan tahay gabadhaas kulley maxaa yidhi wax sidii maalintaas iyada ah loo weyne meel ay saani cirib dhigtayna ma hayno wax inoo sheegana waan weynay waxyaabo badan oo kalena waa iska jiraan waxaan leeyahay waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay kiiskaasi nagu garab istaagto oo ay xaqa u hiiliyaan oo gabadhaas runtii la dhibaateeyey oo la afduubay oo aanan raqi ruux lahaynin ay ilaahay idankiis nagula dadaalaan sidii aan u heli lahayn cadaaladda waxaan dowladda ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaheeda kala duwan inay alla ka baqaano oo ay arrinta ikraam cadaalad iyo si daacad ah ay ugu shaqeeyaan intaas kadib waxaa kalantoon meeshan ka soo jeedinayaa waxaan maqalnaa in dowladdii dhexdeedii khilaafyo uu ka jiro taasna waxaan leeyahay shakhsiyan inay arrintaasi runtii ay wanaagsaneen shacabkan daalay oo doorashadii waqti hore la bedeli lahay dib u dhacday oo dhibaatooyin badan iska jiraan waxaan codsan lahayn inay madaxda qaranka ay arrintaasi ka heshiiyaano oo waqtigii doorashadii iyo dowladdii kale cusbeed aan heli lahayn ayaaba la joogaaye inay ku dadaalaan inay dhammaystiraana muddadoodii way qaateen inta u dhiman inay alxamdulilaahi ka shaqeeyaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen intaa kadib waxaa kaloo aan halkan iyadana dhibaato ah oo nagu soo gaartay aan horena u ogeyn in dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Shabeellaha Hoose in ay laayeen ciidamo ka tirsan Amisom dadkii iyaga ahaana bil iyo ziyaada ay farinjeer ku jiraan iyagoo la jarjaray oo la dhibaateeyay hilibkoodii oo halkaas ku jiro ilaa haddana wax soo daba kaca iyo wax arrintooda ka taliyan aan la haynin taasna waxaan leenahay waxay dusha ka saaran tahay mas'uuliyaddeeda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaa kaloo aan ku darsanayaa sida warka hortay oo u sheegay in gobolka Hiiraan dagaallo muddo badan soo noqnoqday oo 8 sano u dambeysayba socday oo aan heshiis rasmi ah laga gaarin arrinkaasna bal in haddii ilaahay yadma waxaan u dirayaa anoo intaan ka wakiil ah ama afkooda ku hadlaya baaq inaan ujeedinayno in dhibaatadaasi lagu bedelo dagaal wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho in arrintaasi lagu bedelo colka nabad lagu bedelaan ka codsanaynaa labada dhinac oo meesha ku dagaalamaysa waxaan kaga mahadcelinaynaa waaska beesha Xawaadle oo runtii aad iyo aad u dadaalay arrintaasna dhex istaagay garabkiina Allah galo odayaashiina iyo culimadiina iyo waxgaradkiina Allah idin fududeeyo waana mahad dhinaca kale imaamka beeshaasi oo la yiraahdo imaam Maxamed Yuusuf ayaa isaguna sheegay in uu samar badan yahay isla mar ahaantaana iminka ay sabreen balse ay doonayaan in la dedejiyo cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil odayaasha ayaa ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inuu faraha kala baxo arrinta kiiska Ikraan Tahliil oo u daayo shaqada uu hayo ra'iisul wasaare Rooble gabadhaas ilaa cadaalad inay heshaan uu isugu nimaday haddii alla yiraahdo ilaahay idankiisa waxaan ka rajaynayaa dadka ay qusayso warkayna maqlay inuu cadaaladii soo dedejiyo hawiye qof naga maqan mara duqubkiisa wixii xamar joogay diyaaraanan nahay waxaan diyaar u nahay gabartaas inay cadaalad hesho waa sabar badannahay waana sabarnay haddana waa sabri doonaa laakiin hana loo dedejiyo waxaan ku dirayaa qolada nooga jirto xawahay inta una soom jarjartay isbitaal ku jirto meelaha qaarkood banaytay haddeer kuma jiri karin hal bil iyo wax la jiray ku jirtaa sida la sheegay 40 bil iyo 3 maalmood ay ku jirtaa una soomna jidadka anay kor iyo bari maraysaa madaxdeeduna waa loo sheegay waa maqbursi ama noo maqan taaba kala ka silaana marka idana jawaaban ka sugeynaa laakiin midaan maanta isugu nimid waa Ikraan ilaahay idankiisa anaku waa dhimatana dhihi ma karno waa nooshaana dhihi ma karno walaa hoobaan ku jirnaa
allah u fududeeya inta ku dadaalayso dadaalkaasaana sugaynaa haddii alla yidhaahdo wixii warka soo baxo ayaana ku dhaqmi doonaa midda kale doorasho wakti ahaa lagu jiraa dowladdu waa dadaalo haysaa gobolladuna waa dadaalayaan iidan ayaan dib noogala dhigino waktigeediyaa la joogaahe dadka doorashada wado maamul goboleedyada ha loogu kaalmeeyo ammaankoodana ha la sugo haddana meel fiican ay maraysa aqalkii sare kan hoosena goorba ku xigi doonye nasiibkayna dowlad la-aan malihi dowladaan baranee yaan dowlad la-aanana dhigin khilaafkana ha la dhaafo khilaafkana ha la dhaafo dad walaalahaa tihiin soomaaliyaa tihiin haw haddii alla yidhaahda inaad inta tashatiin anaku shacibaa nahaye waa ogolnahay taladiinne aad meel wax isla dhigtiinaan daga sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina dowladda jabuuti ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle dowladda jabuuti ayaana beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo la xidhiiro xaaladda caafimaad ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle warkaasi oo shalayto aad ugu baahay baraha bulshada sidoo kalena ay wariyeen warbaahinada qaar ayaa lagu sheegay in madaxweyne geelle loola cararay dalka faransiiska oo xaaladiisa caafimaadna ay liidato hase yeeshee waxaa warkaasi waxba kama jiraan ku sheegay wasiirka arrimaha dibidda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka islamar ahaantaana sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne geelle ay tahay mid wanaagsan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaannu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaannu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaannu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaannu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kulan wanaagsan qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay agagaarka xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba khasaare ceenkee ayaa ka dhashay qaraxaasi yaase ka dembeeyey xog arrintaasi la xidhiirto ayaannu daawadayaal idiin soo gudbin doonnaa oo muuqaalka aad ku daawan doontaan cabsi soo wajahday shacabka ku nool magaalada muqdisho kadib qaraxa ismiidaaminta ahaa ee galabta ka dhacay halkaasi ra'iisul wasaare rooble oo la kulmay midowga raxiinta islamar ahaantaana ka hadlay arrinta kiiska ikraan tahliil odayaasha beesha hawiye oo ka hadlay warqaddii xalayta uu soo saaray madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda jabuuti oo sheegtay in caafimaadkiisa uu wanaagsan yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle haddaba maxaa ka jira wararka lagu faafinayay baraha bulshada maalmaha laisla dhex marayay oo sheegayay in xaaladdiisa ay liidato qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo sabskribe saar channelka si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelinno aanu ku bilownay goordhoweyd waxaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qarax xooggan gaar ahaan albaabka laga galo xerada xalane ee shisheeyaha ay deggan yihiin ee magaalada muqdisho sida dad goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen waxaa qaraxa lala beegsaday makhaayad ku dhow meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose balse weli ma caddo nooca qaraxa uu ahaa inkastoo warar hordhac ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismiidaamin ah goobjoogayaasha ayaa sidoo kale tilmaamay inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa iyadoo weli si rasmi ah loo xaqiijin karin dhimashada iyo dhaawaca ka dhalatay qaraxaasi qaraxa ayaa imanaya toddobaadun kadib markii janalkeenna uu shaaciyey xog ku saabsan digniin ka soo baxday xafiisyada amniga ee hay-adaha ajnabiga ay ku leeyihiin muqdisho gaar ahaan xarunta xalane iyo sirdoonka soomaaliya oo ku saabsanayd in muqdisho ay ka dhici karaan weerarro culus xogta ay bixiyeen khubarrada amniga oo janalkeenna uu ogaaday ayaa waxa uu sheegay in weerarrada qaraxa ah ee laga cabsi qabo ay ka koobnaan karaan rag soo xirtay jaakadaha qarxa gaadiid qaraxyo ah iyo weliba qaraxyada gaadiidka lagu xidho ee badanaa lagu dilo wadaha gaariga
wixii ku soo kordho qaraxaasi daawadayaal muuqaalada xiga ayaad ku daawan doontaan. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa galabta xafiiskiisa ku qaabilay xubnaha midowga musharaxiinta kuwa oo uu kala hadlay arrimo dhowra. ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta ayaa marka koobaad kulankooda uga hadlay sidii cadaalad loogu heli lahaa qoyska Ikraan Tahliil Faarax laguna simi lahaa hay'adaha garsoorka oo keliya. musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha u muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin hogaamintiisa iyo weliba dardargelinta kiiska Ikraan Tahliil si cadaalad loo horgeeyo, isla markaana uu ka ilaaliyo dhinaca farmaajo oo doonayo in kiiskaasi la duugo. musharaxiinta ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo dardargelinteeda iyada oo la isla meel sidii loo sii wadi lahaa howlaha doorashooyinka. waxaa dhinaca kale ay ka wada hadleen doorashada golaha shacabka oo la filayo inay dhowaan bilaabato, iyagoo tilmaamay inay muhiim tahay in odayaasha loo daayo soo xulidda ergooyinka. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ee la kulmay ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha inay isla garteen dardargelinta howlaha doorashooyinka. waxa uu sheegay siyaasiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ay ra'iisul wasaaraha kala hadleen sidii uu kiiska Ikraan Tahliil ku heli lahaa cadaalad laguna simi lahaa hay'adaha garsoorka iyo in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo weliba in la qaboojiyo xasarada waddanka ka taagan. qaybaha dambe ee warkeenna ayaanu soo gaarnay. odayaasha beesha Hawiye ayaa war ka soo saaray qoraalkii xalayto ka soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo guddi u soo magacaabay kiiska Ikraan Tahliil. odayaasha beesha Hawiye ayaa waxay sheegeen in kaliya ay ku qanacsan yihiin dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha beesha gaaljecel gaar ahaanna ah ugaaska beesha ay ka dhalatay Ikraan Tahliil ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ka dalbanayaan in alla ay ka boqdo oo kiiska Ikraan ay uga shaqayso si cadaaladda. aad ugu mahadcelinayaa duubabtii sharafta leh sida ay maanta wicitaankeeda iga ajiibeen oo ayna noo garab istaageen. waxaa kaloo mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbo ay joogto dibad iyo gudo oo runtii arrintan maanta aan halkan u iskugu nimido ah kiiska Ikraan Tahliil Faarax sida ay ugu qayb qaateen oo runtii ay aad iyo aad u falceliyeen waa u mahadcelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. intaa kadib waxaan maanta iskugu nimid oo duubabkii sharafta leh aan u wacay in arrintan Ikraam oo runtii muddo socotay, waxaan rajaynayaa inay maanta 76 miya ma aqaan intaan u malaynaa korka ma hayo ayay maqan tahay gabadhaas. kulley maxaa yidhi wax sidii maalintaas iyada ah loo weyne meel ay saani cirib dhigtayna ma hayno, wax inoo sheegana waan waynay. waxyaabo badan oo kalena waa iska jiraan. waxaan leeyahay waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay kiiskaasi nagu garab istaagto oo ay xaqa u hiiliyaan oo gabadhaas runtii la dhibaateeyey oo la afduubay oo aanan raq iyo ruux lahaynin ay ilaahay idankiis nagula dadaalaan sidii aan u heli lahayn cadaaladda. waxaan dowladda ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaheeda kala duwan inay alla ka baqaano oo ay arrinta Ikraam cadaalad iyo si daacad ah ay ugu shaqeeyaan. intaas kadib waxaa kalantoon meeshan ka soo jeedinayaa waxaan maqalnaa in dowladdii dhexdeedii khilaafyo uu ka jiro. taasna waxaan leeyahay shakhsiyan inay arrintaasi runtii ay wanaagsaneen. shacabkan daalay oo doorashadii wakhti hore la bedeli lahay dib u dhacday oo ay dhibaatooyin badan iska jiraano, waxaan codsan lahayn inay madaxda qaranka ay arrintaasi ka heshiiyaano oo wakhtigii doorashadii iyo dowladdii kaloo cusbeed aan heli lahayn ayaaba la joogaaye inay ku dadaalaano inay dhammaystiraana. muddadoodii way qaateen inta u dhiman inay alxamdulilaahi ka shaqeeyaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen. intaa kadib waxaa kaloo aan halkan iyadana dhibaato ah oo nagu soo gaartay aan horena u ogeyn in dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Shabeellaha Hoose in ay laayeen ciidamo ka tirsan Amisom. dadkii iyaga ahaana bil iyo ziyaada
ay farinjeer ku jiraano iyagoo la jarjaray oo la dhibaateeyey hilibkoodii oo halkaas ku jiro ilaa haddana wax soo daba kaca iyo wax arrintooda ka taliyan aan la haynin taasna waxaan leenahay waxay dusha ka saaran tahay mas-uuliyaddeeda dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo aan ku darsanayaa sida warka hortay oo u sheegay in gobolka hiiraan dagaallo muddo badan soo noqnoqday oo 8 sano u dambaysayba socday oo aan heshiis rasmi ah laga gaarin arrinkaasna bal in haddii ilaahayadma waxaan u dirayaa anoo intaan ka wakiil ah ama afkooda ku hadlaya baaq inaan ujeedinayno in dhibaatadaasi lagu bedelo dagaal wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho in arrintaasi lagu bedelo colka nabad lagu bedelaan ka codsanaynaa labada dhinac oo meesha ku dagaalamaysa waxaan kaga mahadcelinaynaa waaska beesha xawaadle oo runtii aad iyo aad u dadaalay arrintaasna dhex istaagay garabkiina allah ha galo odayaashiina iyo culimmadiina iyo waxgaradkiina allah idin fududay waana mahad dhinaca kale imaamka beeshaasi oo la yidhaahdo imaam maxamed yuusuf ayaa isaguna sheegay in uu samar badan yahay islamar ahaantaana iminka ay sabreen balse ay doonayaan in la dedejiyo cadaalad u raadinta ikraan tahliil odayaasha ayaa ka dalbaday madaxweyne farmaajo inuu faraha kala baxo arrinta kiiska ikraan tahliil oo u daayo shaqada uu hayo ra'iisul wasaare rooble gabadhaas dhilla cadaalad inay heshaan uu isugu nimaday haddii alla yidhaahda ilaahay idankiisa waxaan ka rajayhayaa dadka ay khusayso warkayna maqlay inuu cadaaladii soo dedejiyo hawiye qof naga maqan male duqubkiisa wixii xamar joogay diyaaraanan nahay waxaan diyaar u nahay gabartaas inay cadaalad hesho waa sabar badannahay waana sabarnay haddaana waa sabri doonaa laakiin hanaloo dedejiyo waxaan ku dirayaa qolada nooga jirto xawahay inta una soom jarjartay isbitaal ku jirto meelaha qaarkood manaytara haddeer kuma jiri karin hal bil iyo wax la jiray ku jirtaa sida lay sheegay 40 bil iyo 3 maalmood ay ku jirtaa una soomna jidadka anay kor iyo bari u maraysaa madaxdeeduna waa loo sheegay waa maqbursi ama waa noo maqantaa waba kala ka silaana marka idana jawaaban ka sugeynaa laakiin midaan maanta isugu nimida waa ikraan ilaahay idankiisa anaku waa dhimatana dhihi ma karno waa nooshaana dhihi ma karno walaa hoobaan ku jirnaa allah u fududeeya inta ku dadaalayso dadaalkaasaana sugaynaa haddii alla yidhaahdo wixii warka soo baxo ayaana ku dhaqmi doonaa midda kale doorasho wakti ahaa lagu jiraa dowladdu waa dadaalo haysaa gobolladuna waa dadaalayaan iidan ayaan dib noogala dhigino waktigeediyaa la joogaahe dadka doorashada wado maamul goboleedyada ha loogu kaalmeeyo ammaankoodana ha la sugo haddana meel fiican ay maraysaa aqalkii sare kan hoosena goorba ku xigi doonye nasiibkayna dowlad la-aan maliyo dowladaan baranee yaan dowlad la-aanna la dhigin khilaafkana ha la dhaafo dad walaalahaa tihiin soomaaliyaa tihiin xaw haddii alla yidhaahda inaad inta tashatiin anaku shacibaa nahaye waa ogolnahay taladiinne aad meel wax isla dhigtiinaan daga sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina dowladda jabuuti ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle dowladda jabuuti ayaana beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo la xiriiro xaaladda caafimaad ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle warkaasi oo shalayto aad ugu baahay baraha bulshada sidoo kalena ay wariyeen warbaahinada qaar ayaa lagu sheegay in madaxweyne geelle loola cararay dalka faransiiska oo xaaladiisa caafimaadna ay liidato hase yeeshee waxaa warkaasi waxba kama jiraan ku sheegay wasiirka arrimaha dibidda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka islamar ahaantaana sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne geelle ay tahay mid wanaagsan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaannu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaannu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah